maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa waxa maanta si rasmi ah uga bilaabmay dhageysiga dacwadda loo haysto mas'uuliyiinta wargeyska madaxa banaan ee hubsade gudoomiyaha wargeyska mudane Cabdirashiid Nuur Wacaysi iyo tifatiraha guud ee wargeyskaasi Siciid Khadar oo Cabdilaahi dhageysiga dacwaddan oo dhowr jeer dib uga dhacday waqtiga loo asteeyay ayaa salka ku haysa warar ku soo baxay wargeyska aakhirka sanadkii tagay ee 2015 oo ay dhibsatay madaxtooyada Soomaaliland garsoore Idris Maxamed Maxamed oo ah garsooraha gacanta ku haya kiiskani oo halkaasi ka akhriyay eedeynta ayaa ay suxufiyiintu ay gaashaanka ku dhufteen eedeyntaasi iyagoo maxkamadda horteedana ka cadeeyay in ayna gelin dambigaasi lagu soo eedeeyay kadib garsoore Idris waxa uu xeer ilaalinta guud ee qaranka oo kiiskani dhibana ka ah uu ka codsaday in ay saxafiyiinta ku soo cadeeyaan oo ay keenaan makhraatiyada iyo cadeymo sugan oo la xidhiidha kiiskaasi waxaana ay maxkamaddu u mudeysay dhageysiga dacwaddani 7 bisha soo socota ee June oo ku beegan maalinta Salaasada ee toddobaadka soo socda dhageysiga dacwaddani ee saaka ka furatay maxkamadda Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto saraakiil ka socotay xarunta xuquuqul insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Human Rights Center iyo saxafiyiin aad u tiro badan dacwadda loo haysto wargeyska madaxa banaan ee hubsad ayaa baqdin ku abuurtay qaybaha kala duwan ee baahda warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland taasi oo hakad gelisay in ay ku dhiiradaan warar badan oo xaqiiqada ku salaysan oo ay hore u tabin jireen arrintan waxay qayb ka tahay tallaabooyin is soo taraya oo xukuumaddu ku damacsan tahay in ay cadaadis ku saarto wararka warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland ay gudbinayaan haddaba isku soo wadaduba waxa laga dhursugi doonaa halka ay ku dambayso dhageysiga dacwadda ee wargeyska madaxa banaan ee maalinlaha ay ka soo baxa Soomaaliland ee hubsade wanigib Cabdilaahi Colaad shabakada caalamiga ee Soomaaliland Rays Hargeysa